السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كلنتي وعنا ونعكسنا خيارته شرفته بدن هودا نجدا وتاي كنا سودوا هذا برنامج كيني عود كارنا ليرضى وبرنامج تضبط الله وتضبط كستات كلا سعوتان تلفزيون كان عالمي جاه السومالي سات برنامجكنا codka dhalinyarada ayaa waxaan idinku soo tabinaa waxyaabaha aanu hadba isleenahay waa ay mudan yihiin in loo soo bandhigo bulshada Soomaaliyeed ee ku saabsan horumarka dhalinyarada Soomaaliyeed ay sameynayso. Barnaamijkeena toddobaadkan waxaad guud ahaantiiba aad ku daawan doontaan ama baan ku soo qaadan doonaa ururka dhalinyarada ee Isli Youth Forum oo ah urur dhalinyaro oo ka shaqeeya arrimaha dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool dalka Kenya. ururku waxa uu qabtaa waxyaabo fara badan, waxa uu ka shaqeeyaa dhanka wacyigelinta, horumarinta iyo waxyaabo kale oo fara badan oo barnaamijkan aad kaga bogan doontaan. Barnaamijka waxa marti inoogu waxa filayaa inaad in badan wada aragteen ama wada maqasheen ama intiina badan ay taqaaniin. Waa Burhaan Iimaan oo ah gudoomiyaha ururka dhalinyarada ee Isli Youth Forum. soo dhawow marka hore Burhaan Soomaali Saad iyo barnaamijka codka dhalinyarada. waxyaalaha u qabatin bulshada Soomaaliyeed habeen maalin waxay la tahay in hawshu ay dhank walba isla qabasho tahay oo haday ururada dhalinyarada tahay TV-yada aan loo kala hari doonin horumarka bulshada Soomaaliyeed. bal marka hore Burhaan waxaad faahfaahin naga siisaa Isli Youth Forum waxa ay qabato, qaabka ay u shaqeyso iyo xilliga aasaasteen. waxaa la yiraahdaa Isli Youth Forum waxaa la aasaasay sanadkii soo dhaafay 2011 waxaa laga aasaasay xaafadda Isli. magaca waxaa la yiraahdaa waa Isli Youth Forum dhalinyarada xaafadda Isli waaye. waxyaalaha badan aan qabanaa bulshada oo qabanaa inta lagu soo koobi karo, laakiin waxaan jeclahay in waxa ka taabto waa tahay mar waxaad sheegtay inaad sanadkii hore aasaasteen Isli Youth Forum iyadoo ay jiraan ururo dhalinyaro oo fara badan oo hadda sidaynu ogsoonahay xaafadda Isli ay konton ku sii dhow yihiin ururada dhalinyaradu. maxaa idinku dhaliyay xilliga inaad aasaastaan ururkan dhalinyarada ee Isli? horta si la sheego ururo badan Isli laga sheegaa inkastoo anaka aan arkin wax qabadkooda laakiin waa maqalnaa. anaka Isli Youth Forum hadana waxaan ugu duwanahay dhalinyarada kale seminaaro kale workshops waxyaalaha aan sameynayno waxaan ogaanay bulshada Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa waa bulsho waxna maqasha waxna aragta laakiin akhrisku uu ku yar yahay. sababta oo malayn ruuxina TV u furteen sa u gartiin ama u gartideen bulshada Soomaaliyeed. waa gartay sida inta badan la sheego bulshada Soomaaliyeed waa oral society, markaas waxaad door bideen inaad muuqaal ahaan iyo maqal ahaan wax tusisaan. waan garanay filimkii ugu horeeyay ee markaa aad sameysaan muxuu ku saabsanaa? horta waxa uu horeeyay waxay ahayd riwaayad sanadkii la soo dhaafay. riwaayada waxaan ku sameynay iskoolkan la yiraahdo Isli High School. waxaa la yiraahdaa Isli High wuxuu ku yaala wuxuu dhow yahay Isli Mall ka dambeeya. riwaayada ahayd riwaayada waxaan sameynay waxay ahayd xilligii abaaraha ay u jireen ahayd marka dhalinyarada iyo bulshada ay casuunay si loogu sameeyo bal waxyaalaha adiga aliisa taageeraha loogu sameeyo. riwaayada markaan aan sameynay waxaa aad iyo aad actually waxyaalo loogu farxa ah. riwaayada waxaa jilay dhalinyarada Isli Youth Forum ay jilaysay. marka waxaan la yaabaa maanta dhalinyarada si uu leeyihiin waxa la yiraahdaa talent ay leeyihiin. qaarkood way heesayeen, qaarkood riwaayadii waxa way mutajalo iyo acting ay sameynayeen. marka waxaan ogaaday in dhalinyarada Isli aan leeysan karin. dhalinyarada adduunka marka soo jooga Soomaaliya dhib haysta, hadii joogan Soomaaliya dhib haysta. waxaa arkay ilmo yar oo 13 sano jiro oo loo isticmaalay in la askareeyo meesha iskool looga dari lahaa. laba dhinac way isticmaalayaan in ka wacyigelin. kuwa kale qurbaha joogay dhaqankaas wax Soomaaliya wax kama yaqaanaan. xunigii intuu Soomaali ku hadalaa wuxuu ka jecel Ingiriis inuu ku hadlo ama luqad kale oo isticmaalo. Soomaalida waxay noqotay calaashan wax laga carado
marka anaga waxaan jeclahay inaan soo celino waxyaalaha Soomaalida ee lagu xasuustay dhaqan fiican aan leenahay aad u wanaagsan marka horan kugu sheegay hal lagu soo koobi karo program mise hal talk show lagu soo koobi karo barnaamijka aad u dheer yahay marka daan ku soo koobo riwaayadda kadib waxaan sameynaa filim la yiraahdo jacaylku waa camoole jacaylku waa camoole filimkaas waxa waaye weli ma soo dhamaystirmin walow oo qaybo klibyo kala duwan aan ka sameeyay xayisiin oo YouTube internet ka geli kartid qayb kamid ah hadda waa laptop ugu jirta oo ku sidana actual program ka bacdi la yiraahdo marka wuxuu ka hadlaa dhalinyarada isla joogta Soomaaliya ka timid qurbi joogaan marka hadii qurbi joogaan ma dhigi karo qurbi joognaa jacayl ma jiri karo iyo aan jeclaanayn lama dhigi karo jukaanta way jiraan hadana meesha maxaa kaga muuqdo duruuf adag jirta dhalinyarada ma shaqeeyaan wiilasha some of them waxa waaye meelaha ka firan gubtooyinka jaadi waxay isku cunayaan gabdhiina guriga joogaan gabadha guriga joogtay marka waxay sugaysaa inay mustaqbal la wadaagto wiilka habeenay maalin fadhiya meesha maqaayada BBC fadhiya oo waqti isku dhiman oo chat ka cuna marka hal gabar ah la jeclaan saddex qof marka wiilka ma qadar aad u adag ka muuqata aad iyo aad waxay la tahay in filmaantaas aad barnaamijka maanta kaga wada bogan doontaan ama aad ku daawan doontaan burhaan wacyigelinta ururkan Islii ma waxay ku kooban tahay dalka Kenya ma waxay ku kooban tahay xaafadda Islii mise guud ahaanba dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan baad ugu dirtaan waa fikrad aad u wanaagsan aniga markii sanadkii la soo dhaafay July aan barnaamijka aan asaasnay fikrad aniga lahaa kabacdan saaxiibada soo bandhigay saaxiibada aad ugu helay barnaamij waxa loo baahnaa oo hadda kor Islii ka jirin buu ahaa waxa xusuus mudan sanadkan cusub bishii labaad waxaan aaday xamar bishii labaad bishii koobaad bishii saddexaad Soomaaliya soo joogay waxaan fiirinayay xaaladda dhalinyarada haysata iyo inaan wacyigelinta inta ka sameynayno xagga aan ka sameyn karno dhalinyarada xagga joogan way jecel yihiin fanka way jecel yihiin way rabaan waxyaalahan programmada entertainment-ga ah meeshii dagaal iyo balaayo karta lahaayeen inay fiirsadaan dhaqankoodii waxyaalo ka turjumaan bar Soomaaliya xilligii dawladda ay sharaf ay lahayd waxay lahayd tiyaatar loo soo aado xilliga oo maalmaha oo fasax leeyahay wax lagu fiirsado riwaayado lagu fiirsado filmaanay lahayd heeso waxay jirtay wadani ah heeso waxay jirtay dhaqan ka sheekeena dhalinyarada ay qof jecel haddana dawladdu ku saamaxay Abdulrahmaanow meesha waxa waaye hadda maanta dhalinyarada isku keentid ama agtid riwaayad daar waxa waaye waa in dhalinyarada ay jeegariyid marka adiga waxa waaye dawladdu kuma saamaxay waxa ka cabsanay in lagu qarxiyo mise in lagu xoogaa arbusha ka cabsanaysa laakiin nasiib wanaag waxaan isticmaalnaa waxa la yiraahdo social media waa YouTube-ka waxa waaye waa Facebook-ka oo noo saamaxayna kaliya aan galino marka Soomaaliya from Muqdisho to Minnesota waxay access gareyn karaan ama ay actually heli karaan barnaamijyada wacyigelinta ama qoraal ha noqoto ama video ha noqoto ama audio ha noqoto iyagoo isticmaala YouTube-ka iyo iyagoo isticmaala Facebook-ka website-kan ka dagashid islii.org dagashid gudihiisa waxa ka leeyahay Facebook-ka kaliya ku sida barnaamijyada maqal iyo muuqaal ah YouTube-kana sidoo kale marka social media marka isticmaalayno waa adduunka dhan waay oo global village way adduunka maanta waxay la tahay burhaan in la sameeyo filmaanta noocaas oo kale ah ee ka turjumaya dhaqanka Soomaalida inay adkaanayso isla markaa ay u baahanayso facility fara badan ururka Islii Youth Forum xageebo ku tiirsan yahay ama taakulada ugu badan xagee ka heshaan artama kooda fikrada aniga aan helay aniga burhaan ahaana business aan lahaa business aad u weynayna lahaa laakiin wax kasta waxa ka muhiimsan isku day marka aniga fikradii aan keenay saaxiibada soo jeeday saaxiibada bagamoonta ay u banaayeen hal yar oo kale jira saaxiibkay leeyahay Axmed Shariif asagana student-na uu ahaa business asagana aad u weynayna lahaa infada suruuxisa uu caawiyay ilaa ay hadda wax banaan ah ka helna ma jiro marka programme aan sameynayno anaga isku noqona contribution shabab dhexda aan sameynaa anaga contribute karayna ilaa marka hore waxaan ugu talagalnay in anaga waxaan wax lacag aan ku raasinayna ma ahayn waxyaalo aan rabnayna xaaladda jirta uga qaban barnaamijka maanta aan sameynayno riwaayad ama sameynayno waxa doomeyna clip dhexdana isku noqonayna contribution sameynayna qolba wuxuu hayo keena qofka ku jira hayo keena 500 qof keena contribution caam ah marka isliigood ilaa hadda dhalinyarada memberka ah dhexdooda bay ku tiirsan tahay ilaa hadda wax fan aan helna ma jirto haddana waxa xusid mudan filmadana aan soo saarno badankood ama soo kulligood baan dhehe waxaan ka raadinayna profit mise aan ka raadinayna faa'iido ma jirto waxaan ugu talagalnay wacyigelin aniga hadda ma hay job kaarkayga kaar holiga ku xiran waa red oo guduudan yahay maxaa sababta uu guduudan yahay hadda looga hadlay fiiriyo kaarkan ku dhiibay waa red iyo black redka macnaha waxa waa dangerous dadaan waxay jiraan aan ogolayn in dhalinyaro la wacyigeliyo dad waxay leeyihiin nimanka uu isticmaalaynay askartan ka dhiganaynay oo aan maleeshiyaanka noo ahaa imaan waxa rabaa maanta inuu naga soo leexiyo oo yiraahdo wax barta
qoriga iska dhiga qalanka qaata marka waan garanahay waan fahmi kartaa inay barnaamij aad iyo aad qatar u yahay marka qatartaas qaadan marka waxaan dhahnaa marka dhiigbax haddii jiro bileed haddii uu jiro inaa business ila cagi ay raadi walaga fiican yahay dhalinyaro waxa arkaa anagoo kale ah Cabdiraxmaan oo maalmo dhimanayaan qaarkood askar laga dhigaa qaarkood markaan gaarinin wax aad iyo aad looga xumaado waaye marka waxaan jecel lahay ilaa xad in dhalinyarada Soomaaliyeed fahmi doonaan mustaqbalka haddana waxaan ku faraxsanahay inay barnaamijyada isticmaalayaan ay yihiin video walow TV-yalkeena aan gacan aan nasiinin marka wixii aan soo saarno waxay u baahan yihiin meel aan ka tagino oo dhalinyarada laga gaaro marka hadda kadib waxaan rajaynaynaa xilligan wax badan oo hayna oo riwaayada mas'uuliyad ah inaan naga qaadatiin ama in ka gadayno oo fiiri inaan ku qaadatiin dhalinyarada agaarsiin si dhalinyarada khatarta ku soo baxaan waa maasantahay burhan marka laga yimaado filmaantan iyo riwaayadahan aad samayseen Islii Youth Forum waxyaabaha kale ee uu qabsoomay muddadii uu jiray maxaa ka tilmaami kartaa barnaamijyo aad iyo aad u badan aan qabanay marka aniga xamar aan tagay waxa kamid ahayd guriyaasha Soomaalida waxa way waan isku wacmaaleen waan la kulmay xamar ka shaqeeya Soomaaliya ka shaqeeya waxyaalaha haysta waan ku bogaadiyay in shaqadooda ay sii wataan Soomaaliya waxa way waado oo bulsho oo dimuqraadi ah oo information qofka Soomaaliya marka jidka ugu timaado wuxuu ku leeyahay bal waran ma fahmi kartaa marka dadka Soomaalida ah akhbaaraadka oo ku dhintaan waxaan dhihi karaa Afrikada ugu horeeyay ilbaxnimada markii la yiraahdo Soomaaliya ugu jirta xag warbixinta marka dadka wariyaasha dhibaato wariyaasha laayna waxa way inay aaminsan rabaan si aan loo helin wax warbixin hadii aad maanta warbixin aad haysanin waxa taamalaha hadii ugu jirta inaa wax kada ku dhacaysa meel dagaal ka socdo kale hadii ahaaleed hadii ahaaleed waxyaalo oo daawo xun oo kale wax laga yaabo adigu waxa way hadii warbixin hadii wacyiga shanayna mise waxba aad ogeyn qatar ku sugan tahay wariyaasha soo arkaa hadana waxa way dhalinyarada Soomaaliyeed waa soo arkay waxaan watay camera waxaan sameeyay codka dhalinyarada inay ogaato bal meesha ay ka joogaan xamar waxa way xisana ay ugu dambeeyay marka aan tagayay dhalinyarada ay ka joogaan Soomaaliya waxaan aragna TV-yada caalamka waxa arkaysaa wax markii wax laga sheekeena waxay ka sheekeynayaan dhibaato dilaa wax gubana ma laga sheekeynaa business-ka waxaan soo arkay telecommunications business oo booming aan soo arkay nolosha Muqdisho marka fiirida Kenya Nairobi waxba uga meelidato laakiin waxa way media caalamka waxay sameeyaan wax la yiraahdo unfair presentation sameeyaan marka soo Soomaaliya fiirsadid waxa arkay waxyaalo xun oo dhaca marka dhalinyarada waxaan dhalinyarada ma dambeeyaan xagga ka jooga bulshada dhalinyarada markaan dhageysan dhalinyarada waxa way adduunka way la socdaan wax ka maqan ma lahan waxa ku jirta cabsi iyo tirada ah haysta aniga talent lahaa oo hadii gabay oo talent ku lahaa oo ama hadii oo aniga oo jeclaa waxyaalaha passionka sida filimada kale oo jeclaa dhalinyarada meel burmus garanay ma jirto talent-kooda marka uu qarsoon yahay marka waxaan ku dhahay one day one time insha Allah taala wadana wuu fiicnaana idinkana waxa waayo badaha iyo waxba ku dhimanina wadankiisa ka jooga waxbarasho wadanka ku jirta inkastoo waxay barafad ay tahay hadana waxbarasho wadanka ku jirta marka uu soo bogaadiyay تتحمل أنت كسوق سمية حافظنا كسوق فرقيلو متفق مال ربنا كلنا حافظنا كلنا هاي عن كسوق سمية أنا قلت لك علينا أن هذا السمنة هذا يواك شبيه أنت ما ركزوا نقضي والبريس بريدو نيزي أو حقوق المدينة مالورية أسبوع واحد هذا أنا ووصل وغشي في حالة حمل كتيرتي مركب معلومها أو مناسب كان وان سمعنا سيد معلومة نبدأ دون كله نبدأ نبدأ إلى ذا كلام ما كشيء كنا مركب وعي قلنا أنت كسوق سمنة هذا سمعنا سكولة أنا سكولة ما كأننا لو واحد وايد اللي هذا ولا هذا ما waxbarashada muhiimadda ay leedahay waxaan isku soo duuduub waxa way wax imaanayaan wax qabadka silowada kamid yihiin wax badan oo sameeyay hadii la yiraahdo Soomaaliya waxa way wax la raamo maalin lagu ma dhisin wixii waa bilaaw laakiin dreamka naga aleena waxay tahay inaan dhalinyarada aan ka saaran dhibkaysa kuwa tariibka ka celino waxa way Kenya marka ka tagtay ilaa South Africa dhalinyarada Soomaaliya ku xiran ilaa qofka sheekeynaa ma jirto fadaha sidoo kale ugu dhimanaya حبض على استعمالها ممكن دليل أنا وححل كذا يعني دليل الصوماليات إنها بالبادين أنتي بابا ما أنت كلام علىنا كصهارة يعني كوش قسم حلي جو حل شو ما أنت قرن جل باتني كوجا شو فك أقوان على هين بدون وحام كتير وكهاني وحكوا علينا قرن كذا قال لك قاتل ممكن ندكتنا ممكن جمان أما يدعو عمان ملي وتجايا ممكن وحاول دليل هذا وحاول متشكي وجه واتهاي برهان waxaad sheegtay in waxyaabo fara badan oo hore soo qabateen Islii Youth Forum waa maxay qorshaha waqtiga dhow ee dhalinyarada Soomaaliyeed ee Kenya ugu tala gasheen ama waqtiga dhow hadafka aad tigsanaysaan waa maxay aad su'aashaas muhiim tahay waa su'aal waxa aan ku faraxsanahay in waxaan arkay Nairobi joogay dhalinyarada Soomaaliya ka timid waa magaalada Nairobi halkan aan joogay oo isku dayeen in Soomaalida ay inkaraan
aniga aan garanaa inay Soomaali yihiin Soomaali ay ka yimaadeen maxaa ku qareynaa marka waxa way dhalinyarada dhaqankii Soomaali waxa ma garanayaan Soomaaliya 20 sano dib u bisay yaqaaneen koor maxay ahayd Soomaali ma garanayaan luqado kale sida way xilliga kale ku hadlayaan sajuusujuwa qaar ka dhigayaan war waxa way marka dhalinyarada waxa way inaan u sameeyo wax la yiraahdo habeenka Soomaalida ee Nairobi ومال aan kusoo bandhigayno Soomaalida cunadii ay lahayd oo macaan ka badneed oo taqaanay ومال ممكن إذا أراسك Soomaalida أراس dhaqan ku xilaa kamid أراسك bariyan waxaan أراس dadku ka rusayaan nimanka wiilasha waxay wadaan suud qablina taaji wata أراسك ma ka dhacaa min sabto ma ka dhacaa أراسkan London ma ka dhacaa marka in la helo gabdhihi timaad taana oo gudsoonayay ka watay wiilkii macawus iyo qoyaashi watay in la helaa waaye Soomaaliya waxa way waxa lagu soo xasuusto waxa kamid ah dhiilihii inkaas wax kaas aan keenin karin lees waxaan isku dayay inaan waxyaalo ka turjuma Soomaalinimada aan keeno si Soomaaliya loo jeclaado gabayaha ahada baraambaraha ahado waxyaalo Soomaalida waxa way leedahay Soomaaliya waxa leeyahay waa bulshada actually nation of actually poems leedahay waa bulshada gabayga leedahay Soomaalida marka maadaama gabayga ay caan ku tahay waxa way lees waxyaalo Soomaali lagu yaqaan ay taananta u leedahay ina meesha aan hal iyo laba ka soo qadno wax ka sameyn karno Soomaaliya wax ka soo bood karno marka least habeenka waxa jeclaa inaan adigu ruuxaaga aan ugu leeyahay Soomaaliya habeenka Soomaalida actually Nairobi and waa filayaa in dhalinyaradu ay in wada daawanayso habeenka Soomaalida inkastoo waqtiga iyo goobta toona aadan arifin ay ka soo wada qayb gali doonaan waxaana kala socon doonaan barnaamijyadeena dambe waqtiga iyo goobta meeshaasi lagu qabanayo habeenka Soomaalida ururkan Isli Youth Forum waxa uu wacyigelino fara badan waxa uu sidoo kale dhalinyarada ugu soo bandhigaa qaab aan ururada kale samaynin oo filimaan ah amaba muuqaal ka turjumaya wixii fariintu ku saabsaneed ee ay bulshada u dirayeen hadaba daawadayaal aan bal wada daawano mid kamid ah filimaanta ay ururkan dhalinyarada ee forum ay ka sameeyeen khatarta ay leedahay tahriibta iyo dhalinyarada Soomaaliyeed qaabkii ay uga wacyigeliyeen tahriibta filimka magaciisa waxa la yiraahdaa tahriib hal ku dhigiisuna waxa weeyaan bini'aadamku iib daawadayaal daawasho wanaagsan دكتورة waxay xanuunay madaxa waxaan xanuunsanaa muddo 3 maalmood waxaan tagay isbitaallo fara badan waxaan gara waayay meesha la iga hayo saaka waxa iga qaaday dhiig aad iga qaaday waxaan rabaa jawaabtiisi maxay iga soo baxay waxaan kala qabaa birihan xumad saa'ida oo madaxa caloosha oo aad i xanuunaysa محل إيه مقعد معايشك محمد علي مركا وحلقاها لي مركي ساكي جدي ديجا أمبارني ملاريا iyo typhoid ملاريا دكتورة ملاريا iyo typhoid kala iga helay waxaan ku wareersanaa muddo aad u fara badan jawaab maxaa xal hadda macnaha hadda daawadaadii oo ku caafimaadeen insha Allah taala aad ku qorina oo malaariyada iyo typhoid malaariyada waa laba garooj marka insha Allah daawada soo qaado daawadaas marka soo dhamaato loo soo labo insha Allah taala sida rajayna ku caafimaad doonto insha Allah taala waa maasanta bukaanadii imaaday maanta ilaa dhowr ay ahaayeen insha Allah taala daawooyinkoodani sida aan filayo way qaateen insha Allah taala waxaan rajaynaa in Ilaahay yiraahdo adaan
شاء الله تعالى بارتا عافماد أد ونكسين اللي قال إن شاء الله تعالى حتى حاجنا إمام وكان هذا مدام يفارقين عن تبكي وتحكي عبد الرسول وقال قال إن شاء الله تعالى كل سعادة عبد الرسول الصوم إن شاء الله تعالى وسيا إيمان الله سيا الصوم إن شاء الله تعالى. Halo. Aku iman inshallah shaqadu way soo dhamaatay bukaanadii waa kala fasaxay inshallah taala diina guri hadda wax bukaan ilama joogan hadda ku iman inshallah taala marka diina aan isug meesha hay 2 minutes okay bas bukaanadii marka aad ورياه وقتك محد قول له شوكتا وقتك دورك محد قول له وشوكتا لا برخلا سي صح وشي ولا مقرنا ورهذا الورياه الى هذا اب ها تحت بالله لا اب جارينكي لها قات gaariga ninkii lahaa qaataya maxaa dhacay aniga iyo waraabi waan ku heshiinay gaariga inaad ku shaqayso oo isla noloshiisa ka helo inuu nolosheena ka hele gaariga ma burburisay ما يا اب مبربر جاري اسا لها اسا انا قات جاري اب ha waxa weeye lacagtii baadan u geynin ولي هلا بالملعب ويران waayahay aniga waraabi waanu ballanay heshiisna waa naga dhaxeeyay maxaad iigu soo sheegi weyday gaariga markuu qaadanay حال لو قاتي ساكن واقيل اقول سو كلا اب وحل اسو شيغا ترتيب wax isku sheega qal isku malaantay kale aniga oga shaqalaanta inay xun tahay shaqo waa raadinayna insha Allah dhageyso adigu shaqo la'aanta hadda abaad ka fikiraysaa waxaan kugu soo koriyay ma warbaad ka haysaa rajay baad ahayd dushayda kugu sidi jiray saasaan kugu soo koriyay ilaa aad inta ka dheer leekaatayna maantadan ayaan isii uu shaqaysanayaa maxaa kalifay inaad maad shaqo la'aan waliba guriga aad sii joogto aadan dibadda u bixin maxaanu ku noolaanaynaa imka Nairobi maxaa lagu joogayaa والله اب aniga taarta ka xumahay shaqalaantan ani laga qaatay ma ku faraxsanayn laakiin maxaa sameey waayay ma xoolo ay shaqayso ii dhibtaa jira adiga dhad ku shaqeey xoolo rag ba iska lahaa marka asana qaataa waxaad yeelaysaa hadda shaqa laga rabaa sida laguma noolaan karo Nairobi laguma joogi karo magaaladan waxaan rabaa shaqo ayaa la rabaa intaas dheer leegtahay waxbaan ku soo baray waxbaad yaani ilaa iyo maalinkan ku korniyay koriimo un ma yahay waxbaan ku baray xilliga adigu noo shaqayn lahayd baa la joogaa gaarigiina waa la qaatay waa yahay adaan shaqo ka rabnaa تشقى رينا تعدى مزيد وسخين صعب لا وريا سير مكيالنا أنا محانو قبلنا قارجي وقف وديبي أقوم بوليه ودريول haddii uu shaqo ka waayo xafiis waxaan doonayay gaariga inuu ku shaqaysto ilaa uu ka helayo oo taxi driver noqdo oo magaalada ku barto oo dadka kala barto oo uu ku shaqo tago oo hadhowto xafiis uu uga gudbo oo hadhow uu nisare uga gudbo ilaa iyo heer jaamacadeed baan wax baray alla ya hadig waa soo taagan yahay gaarigina waa la dhiibay تشقى كردنا واهي نيرو شقلا أنت كجرت زي هذا أبو الله حكر على مقرنا والله رنتي سو أنت أصلا يسوي كورنا يسوي داري لكن نيرو اللي حالة أدوه أساس كنقط حاصل من هذا الرأي
sanaa ugu daahay maanta maxaa sameeyaa waa inaan soo kiciyaa haddaan u tago waryaa carafaad waran haye ma tagtay laboorka haye saaxiibka hee ها هوي معانا هوي إلهي كوجيو نمط إلهي كوجيو هاي هوي معنا واي كوسو ديراني هاي هوي أوكي هوي باي waa tahay daawadayaal waxaan filayaa filimkaasi inuu idin wada cajab geliyay aadna dareemi kartaan waxqabadka ururka dhalinyarada ee Isli Youth Forum iyo qaabka uu bulshada Soomaaliyeed uga wacyigeliyo khataraha tahriibta iyo dhibaatooyinka kale oo kaalinta uu kaga jiro bulshada daayarta ah ee soo kacaysa burhaan hadaynu u soo noqono barnaamijkeena waxaad ka dhawaajisay waxqabadkiina iyo sidoo kale qorshayaashiina waqtiga dhow iyo waxyaabaha aad higsanaysaan Soomaalida dhalinyaradeeda ee tirada badan ee ka jira dalka Kenya wuxuu kaga duwan yahay horta annaka waxa way ururka marka sameynayna iska maana sameynin anigoo marka aan baaritaan ku sameeyay bulshada Soomaaliyeed ma filim soo saaraysa mise riwaayado ama waxa la yiraahdo majaajilooyin drama aad sameey kartaa oo oodiya ah baaritaan badan marka sameeyay aniga xataa nafsi ku jirto waxaan ogaaday waxa ugu fiican maqalka waxaan dhigi karaa boqolkiiba waxa waaye 40 ومقالك سومالي waxay jecel yihiin talent leh inaan dhalinyarada talent leh aan soo saarno oo gacan qabano oo qof walba wuxuu u hamay artist ma leeyahay anaka nano artist ma noqon karti chasi waxa leenahay artistnimada waxa nooga sheeg maxaa ka taqaanaa qofkii maxaa wax noo daro garay wax noo interactive forums marka isku yimaadaan waxa sameeyay debate sameeyay waxa leenahay tahriib oo kale soo aragtay badooda ayaa marka waxaad qana gabdhaha Soomaalida waxa lagu yaqaanaa gabdho inay yihiin hard workers ah talent leh inta gabdhaha Soomaaliya waxa la yiraahdo kara ma aha marka Soomaalida waxa la yiraahdaa waa bulsho oo social waa bulsho waxa la yiraahdaa sorry waa bulsho waxa la yiraahdaa nimanka ku badan yihiin male society la yiraahdaa marka ayaan waxaan isku daynaa gabdhaha inay role leeyihiin maadaama gabdhaha lagu ciiday dhinaca waxbarashada guryaha waxa la yiraahdaa jaamacadda Soomaaliya waxa dhahan waxyaalaha aad mahmooyinkooda aan jeclaan waxa kamid ah jaamacad naageed jaamacad gabdhaha jika u dambeeyay gabadha marka xasaasiyada adiga waxa lagu dhalaba inay jikada aad wax ka reedid gabdhaha waxa u dhahnaa waxay wiil oo qabto gabar way qaban kartaa waxa laga yaabaa wiil gabar inay gabadha ka taalanta badan tahay wiilka markaas ku nimaadno doodaha aan sameynayno bakas aan ka doonno gabdhaha waxa u maleeyaa markii dooda aan aruuriyo waxa u maleeyaa gabdhaha inay xigmad badan yihiin wiilasha ka xigmad badan yihiin gabdhaha ruuxooda marka ku baraarujinayna inay wax bartaan oo ayaga ay isliidin jikada isku hareen ay isdadar galiyaan marka dhalinyarada Isli Youth Forum wax badan ka duwan yihiin waxaana ka turjumaa wax qabadka aan qabanay waxa aragtay halka sano aan jirnay media adduunka oo dhan sida Voice of America BBC AFP waxa weyna ka fargareeyeen waxa qabadka marka hadii wax fiican ay qabatid adduunku waxa way uu arkaa uu ku sheega
haddii laakiin magac ahaan magacyeel aad tahay hadda waxaan maqlaa maalmo konton urura jirta maxay qabtaan maxay sameeyaan haddana waxaan u maleynayaa waxyaalaha aan loo arkin waxaa kamid ah waxqabadkooda waxa weeye inaan leedahay istiraatiiji inaan leedahay waaye Soomaalida waa inaad taqaanid bulshada aad taageer karayna waa Soomaalida inaad taqaanid waxaa arkaysaa waxaan aragnaa niman oo Kenyaanka kale oo sida Kikuyu iyo Maasai iyo oo Soomaali ururada samgareysta magaca Soomaaliya la imaanayaan hay'adaha aadayaan waxa waaye qofkii marka qof Soomaaliya ka xitanayaan ama sama wadamo Soomaaliya u yihiin marka waxa u jeeda waxyaalahaas oo dhan waa wax wal project oo lacag lagu cunaa waxa ma ahan loogu talagalay in Soomaalida lagu sameeyo isbedel annaka marka dhalinyaradan waxa rabnaa ku sameeyna transformation inaan ku sameeyno isbedel oo ay halakeeyeen dhibaatooyinkan dagaalada waxbarasho la'aanta dhibaato ay haysato rabnaa isbedel aan ku sameeyno annagoo isticmaalayna waxyaalaha artists and media artists oo garanaysa aad u tiro badan yahay media han tudii waxa waaye qaarna waa free qaarna waxa waa lacag kaga baahan yihiin waxyaalaha waxa marka lacag aan kaga baahnayn sida social media waxa social media waxay dhan waa faydas wixii hadda maanta aad qortid blog as meesha ku qortid waa faydas immediately adduunka oo dhan waxa laga yaabaa inay 40 million dad ka badan ay arkaan Soomaalidan waa 10 million marka anaga waxaan leenahay still use forum waxaan ku filan social media waxaan ku borogelinaa TV-yalka private-ka Soomaalida ay leeyihiin barnaamijyadanada aan sameynay anaka lacagtana ku sameynay anaka waqtiganada gelinay maanta still use forum waxay haysto qalab ma jirto waa soo hayr kareysana marka wixii aan soo duubnay oo waqti aan gelinay oo bulshada karti lahaa in social media kaliya aadaan ma aha TV-ga waxa waaye dawladda ma jirto oo dawladda kamale waa private wax ku raadsadana waa ku raadsadina waxa waaye haysiin waxyaalaha marka in at least 30 minutes 24 hours loo dhexgeliyona waxa waaye waan ku codsalay TV-yalkeena waan ku faraxsanahay waqtigeena siiyeen Soomaalisad kuwa kalena waxa waaye wax jalaalaha inay ku daydaan waxaan TV ugu horeeyay soo fariistay inuu yahay Soomaalisad waxay la tahay inaad fursado barnaamijku inoo socon doona daawadayaal kuma ay kaan doono toddobaadkan oo kaliya isla youth forumna waxaan idinka soo gudbin doonaa barnaamijyo fara badan oo kamid ah waxqabadkooda ama horumarka ay dhalinyarada isla gaarsiiyeen burhan xidhiidh intee leeg baad la leedihiin ururada kale ee ka jira gudaha dalka Kenya hadday noqoto guddiga ganacsatada ee xaafadan Islii iyo mas'uuliyiinta ka soo jeeda Soomaaliya ee ku jira baarlamaanka dalka Kenya ama dawladda Kenya inuu ku jira waa barnaamij aad u muhiim ah inkastoo siyaasadda iyo ururada ay kala fog yihiin oo ururka iyo siyaasadda waxa waaye isku fiican ururada iyo siyaasadda waxaa sameynaysaa activism waxa u dhaqdhaqaaqaysaa dad dib oo haysto dadka dibku haysto laga yaabaa meesha maamul inuu ka jiro hadda tusaale ahaan haddaan dhaho waxaa waaye barnaamij ka sameynaya Soomaali galbeed marba inaan dhaho Somaliland marba inaan dhaho Puntland aniga waxa waa Soomaalida waan jecelahay marka riyo waxaa leeyahay Soomaali weyn aan arko Soomaaliya midad inaan arko marka dadka meesha maamula ma jecela inaa baragelisid haddii marka ninka meesha maamula madaxweynaha ka ah gobol mise degmo aad saaxiib la noqotid waxa ku qasbanaanay wixii meesha ka jiro dhib ah inaa qaridid waa ninka saaxiibtinimo marka anaka waxa waaye way jiraan dad badan oo wax qabana way jiraan ganacsatadana waxa waaye waxaan jecelahay ganacsato bulshada wax qabanaya inaan la arko ma jecelahay ganacsato oo waxa la yiraahdaa blood profitters ganacsato ka faa'iideysanaya dhibaatada Soomaaliya oo kale waxa lagu leeyahay ugu tajirsan waxa laga helaa xamar dadku ugu faqarsan waxa laga helaa xamar marka xilliga lagu jiro burburka dadka ka faa'iideysteen marka waxa la ganacsatada waxa la sadaqayso hadii wax bixin uma leenahay waxa inay ka baaba'ayaan marka bulshada waxa waaye ka shaqeyso una shaqeey ganacsatada waxa waaye ganacsato way jiraan iyagana fiican marka anaka waxa waaye guud ahaan waxa ururka tahay waa in bulshada u dhaxeeyid marka qofkii fiicana waan ku amaanaynaa shahaado sharaf aan sii doonaa qofka kale waxa leenahay inuu toosnada rajeynayna oo ma santahay waa tahay burhan waxaa jira dhawaan dalad ururada dhalinyarada ee dalka Kenya ka jira oo la sameeyay xiriir intee leeg baad leedihiin daladaas ma is aragteen wali maamulka loo sameeyay daladaas maxaad si kala socotaan aniga waxaan ogahay waxay tahay Islii waxa ka jira dhalinyaro badan oo urura magacooda waa la maqlaa ma aragna wax qabadkooda laakiin waxaan taageeraa in dhalinyaro isku xirnaadaan markii qof la yahay wax lama qaban karo markii in isku xirnaadaan hal golan hal umbrella la sameeyo wax qabadka meel isku geeyo wixii la qabanay la kala qaybsado si shaqada u fududaato in muhiimad ma ahan in wixii ay noqdaan suitcase mise briefcase wixii ay noqdaan
oo ururkii oo noqdo wax ku jira back saboorta ku jira inuu noqdo loo baahan waxa ururku waa inuu xafiis leeyahay ururku waa inuu barnaamijyo wacyigelin oo moodo sameeyaa seminaaro la sameeyaa workshops la sameeyaa dhalinyarada isku keentid dhalinyarada inay toodaan awood u siidid oo waxa jira dhalinyarada waxa jira aan hadli karinin laakiin ay ku jirto talentigi ku jirto spirit la weeyeen laakiin ma hadli karaan marka adees qoladii wax qabataan waxa waaye waan soo dhaweynaa waan taageersanahay waqtigan kala reebi doona marka xalay dhalinyarada isku yimaadeen hal ambareel hal sameeyo hal wada shaqeeyo Soomaalida ma ku arkin bariyahan in wada shaqeeyaan waxa waaye koox iyo waayala xubno ku xataa waxay gashay dhinaca xataa media marka aan seminaaro kale u sameynaa waxaan arkaa waxa la leeyahay adiga groupkii casuuntay waranaka Soomaaliyan hay wariyaal aan nahay anaka dhan waxa waaye groupkii iyo qolada wax xubno ku tiramayaan hal waxa leenahay hadda waxa jira wariyaal waxa jira inta qaxooto ka ah marka ayagu qaxooto ku aadana oo ayagu kala cararaya marka hadii ayagu wariyaasha isla soconeen wax siinaan wax uu qabanaa malaha urur waxa jira wariyaasha ta kuleeya sida CBJ oo kale marka hadii adiga meel ka socotid waxa gaar ah wato dana wax gaar ah wato saxiibku wax gaar ah wato adoo waxa leeyahay markaan waxa waa qaxooti maxaa uu qabanayna waxa aniga keen waa maarade wixii adiga keen ninkaas ku maarada marka Soomaaliya bariyan waxa maaradu waxa adduunku waxa tusaale wuxuu noqday hal laba qof Soomaali ah oo wax wada qabsato wada shaqeysta bariyan lama arko marka aan jeclaan waxyaalaha inaan iska dhaafno magacii Soomaalida iyo sharafta aan soo ceshan adduunka ku leeyahay waxay la tahay in la gaari doono haatan waxa loo gudbay dawlad rasmi ah rajada Soomaaliyeedna ma xumo meel kasta oo bulshada Soomaaliyeed joogaana waxaad moodaa inay hadda soo baraarugayaan oo ay ka soo toosiyaan meeshii ay jiifeen 20 sanadood ee burburka aynu soo marnay ugu dambeyntii waxaan ku jirnaa qaybihii dambe ee barnaamijkeena bulshada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa hadeertoole ama dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku daawanaysa maxaad u soo jeedinaysaa dhalinyarada Soomaaliyeed waxaan soo jeedinaa waxa la gaaray 21 sano waxa la soo maray burbur ah Soomaaliya hadda rajay fiican ay leedahay waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay dawladna siiyo dawladdan inay dawlad fiican ay noqoto aniga waxaan dhahaa dawlad laan dawlad xuna ka fiican waan garanaa dawladdan waa dawlad fiican ciidamo awood lama haysato dhaqaale ma haysato wadanku uu baaba'san yahay marka waxaan leenahay insha Allah waxaan rajaynaynaa dawladda inay helaan laakiin dhalinyarada gaar ahaan waxa ugu baaqaa dadka bulshada Soomaaliyeed ka joogaan magaca aan ka cararayno aan iska dhaafno Soomaalida wax lagu faanaa waayo adduunka Soomaalida waa calankan ka fiiriyay baa aragtaa shabeelka inuu shabeelka marka wuxuu ku tusay Soomaalida inay yihiin dad active ah marka Soomaalida wax lagu faanaa wax laga carara ma ahan magaca Soomaaliya laga cararin dhaqanka la soo celiyo qof kasta oo Soomaaliya marka uu ka joogo wuxuu kilka yahay waxa la yiraahdaa Soomaalinimada uu kilka yahay dhalinyarada waxa leeyahay gaar ahaan hal iska dhaafo waxyaalaha la sameeyay qabiil wax ku tiraayo qofka dumar qof Soomaali oo yahay Soomaali oo ku hadla wax uga baahan malaha inay dhaadiri hebel maanta wax ku saacideynaya malaha marka qof kasta oo dhalinyarada qalanka hala qaato waa xilli wax la baran lahaa adduunka teknolojiyada waxay aadeen dayaxa la aaday hawada la aaday Soomaaliya waxa inay soo socoto marka dhalinyarada waxa waaye dhalinyaro badan oo insha Allah waxa waaye inay isbedeli doonaan anigana waxa waaye ma dhowna muusho ku noqon ma jecel hadii la yiraahdo marka la iska dhaaf dhalinyarada ay sameynayaan waxa wax qarxina waa dhalinyaro wax dilaa waa dhalinyaro marka waxaan maleenahay inta madax soo duubatay in qof dijid waxa kaaga wanaagsan in qof ina badbaadiso marka qaabka ku dish ama qaab qabiil ku dil ama qaab siyaasadeed ku dil ama dana gaar kala hawo dhalinyarada si guud aan ku baaqaa in waxyaalaha xun ay iska dhaafaan qof kasta oo dhalinyaro ah qofka xataa maanta 30 jira oo isla maanta wax ma soo badan jarid muhiimadiisa waxa waa hadii namad la helo fursad uu ku noolaado uu ku shaqeysto wax ku barto uu hela waa barastina ma laga gabo aan jecelahay dhalinyarada Soomaaliyeed marka ay joogaan hadii wadanka joogaan iyo hadii qurbaha ay joogaan inay magaca ay ilaaliyaan Soomaalinimada waa tahay daawadayaal guud ahaan baa intaasi ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena codka dhalinyarada oo ah barnaamij toddobaadle ah oo toddobaad kasta aad kala socotaan telefishinka caalamiga ah ee Soomaaliya toddobaadkan waxaan idin kala socodsiinaynay xarunta labaad ee telefishinka uu ku leeyahay magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya barnaamijka waxaa idin la socodsiinayay idin soo jeedinaya anigoo ah Cabdiraxmaan Cumar Cabdiraxmaan Soomaali dhanka kamaradu waa Christopher farsamadu waa Suleekha Cabdilaahi guud ahaanba anagoo isku duuban taniyeentiina barnaamijka kan xiga ku kulmi doono waxaan idin leenahay amaana Allah iyo sarag dambe oo xiiso leh aad baad u mahadsantahay Burhaan thank you so much aad baad u mahadsantahay ma balaasha